بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس وزراء حكومة Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Seoul ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Kuuriya. Halkaasi oo ra'iisul wasaaruhu iyo wafdigiisa ay kaga qaybgali doonaan shir madaxeedkii ugu horeeyay ee dalka qaaradda Afrika iyo Kuuriya, kaasi oo qabsoomi doono 4 iyo 5 bishan Juun. shirka ayaa waxa looga wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ilaa 1950yadii soo bilowday ee u dhaxeeya dalalka qaaradda Afrika iyo Jamhuuriyadda Kuuriya. waxaana inta uu shir madaxeedka uu socdo oo ay ka qayb gali doonaan madaxda qaaradda Afrika, madax ka socota midowga Afrika iyo bangiga horumarinta ee Afrika lagu eegi doonaa sidii iskaashi weyn ay labada dhinac uga yeelan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha iyo waliba horumarinta ganacsiga iyo kobcinta guud ahaan dhinaca farsamada iyo tiknoolajiyadda. shirka ayaa waxa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa dhibaatooyinka dunida soo wajahaya oo ay ka mid yihiin saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika, iyo sidoo kale cunno yarida iyo dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo tamarta ka taagan. waxaa sidoo kale shirka looga hadli doonaa qaaradda Afrika oo runtii dalalka ku yaala loo arko in ay yihiin meesha mustaqbalka dunida ay u socoto, sababtoo ah kheyraadka dhexeegaaga qaaradda Afrika iyo sidii ay uga gacan siin lahaayeen dowladda Kuuriya warshado wax soo saara iyo waliba sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada xagga shaqo yarida ee ka jirta qaaradda Afrika oo runtii hadda dadkeedu ay ku dhow yihiin 1.4 bilyan oo qof oo boqolkiiba 60 ka mid ah ay yihiin dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 25, taasi oo shirku uu ahmiyadda saari doono sidii looga faa'iideysan lahaa xoogaasi da'da yarta qaaradda Afrika. ra'iisul wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa waxa uu khudbad ka jeedin doonaa madasha shirka oo uu kaga hadli doono horumarka ay samaysay xukuumadda Soomaaliyeed muddadii ay hadda jirtay ee dhinaca amniga, horumarinta xagga dhaqaalaha iyo waliba arrimaha bulshada. waxaana ra'iisul wasaaruhu uu inta uu joogo madasha shir madaxeedka Jamhuuriyadda Kuuriya iyo dalalka Afrika uu kulamo gooni la yeelan doonaa madaxda qaaradda Afrika ka socda qaarkood oo ay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalkaasi.